السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مد Soomaaliyeed meel boo joogtaan horta waan isalaamay waxa caawinta isoo fadhiisay runtii aniga horta qof damiir lahaan ahay dumarna waan ahay waxa caawinta isoo fadhiisay waxyaalo fara badan oo Ilaahay raali ka ahayn oo arkay baraha bulshada waxyaalaha la soo dhigdhigayo dumarka isu soo qaabinayo ayagoo rag ajnabi ka ah waxaan caaw horta intuu soo fadhiistay qaasatan gabadha Soomaaliyeed dhahayo iyo liicaad wiilka dhahayo asagana runtii horta aniga aqoon iima lihi baraha bulshada in ku arkay waayo Sumayo gabar waayo Soomaaliyeed dumar waayo liicaadna waa nin rag ah waxaan waa adduunyo waa laga tagayaa horta waxyaalo fara badan oo Allah raali ka ahayn ay ku dhaqanaysaa gabadhaas ayada oo nin ajnabi ka ah una qabin ay intay ordaan waxay rabaan isla soo suubiyaan oo baraha bulshada soo dhigaan haddana waxay leeyihiin waa baraangi hortaas Ilaahay raali kama aho wax lagu dhaqdana ma aho wax damiirtanada ay jeceshahana ma aho maanta dumar ahay adna dumar tahay walaashiya tahay gabar Soomaaliyeed tahay abaa maanta waan kula dardaarmayaa waxaan rabaa inaad waxyaalada aad ku dhaqanayso marka koowaad horta iska joojisid teedrood waxaan rabaa inaad is asturtid oo xijaabka xiratid mid labaad timaha aad qaawinaysid iska dhaaf timaha aad qaawinaysid iska dhaaf waayo waxaan waa adduunyo waa laga tagayaa dhalinyarnimo ay ku qaadin qofkii maanta nool bari ma noolo adduunyadana safar baa laga wada yahay haddaa dhahdid waad soo hanuuni dhalinyaro tahay dhib ma laha iska dhaaf waxaan ku sii dhaqo may lagama yaabo waxaa laga yaabaa adduunyadan inaad ka faaruqdid baribo haddaad dib isku dhigtid meel lagu soo jiro Ilaahay baa og horta dhammaanteena meelna loo soo wada jiro alla og Ilaahay horta saan dumar u nahay Allah subxaanahu wa ta'aala horta hana soo hanuuniyo runta dumarka horta fisqigooda batay barihan dhaga hadalkooda meel walba ayaga la ku bahdilan anaga la ku bahdilan meel walba runtii waa wax laga xumaado qof bini'aadan oo damiir leh walaa wuxuu fiirsan kana maaha waxaas ragga Soomaaliyeed waxaan kala dardaarmayaa oo gabdhaha Soomaaliyeed waxyaalaha foosha xun horkacay inay gabdhaha waaniyaan runtii anaga walaalahin baa tihiin wiiluna la dhashay aabuuna dhalay waxaan rabnaa inaad niwaanisaan oo meel walba wax xumaata qofka suubinayo inaad kala hadashaan laakiin haddaad idinkii u sii horkacdaan meeshaas wujimayaa horta dumarka intay ordaan TikTok soo galay isu soo qaabinay ragga ajnabiga wax la soo duubay horta iska dhaafeeno Allah subxaanahu wa ta'aala runtii wuu noo carooday adduunyadana oo laga faaruqaya gabdhaha Soomaaliyeed oo dumarka ah aan sii buwaanaya walaa runtii xadkaad ka baxdeen baa waxaan rabaa inaad Allah subxaanahu wa ta'aala u noqotaan oo Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu jecel yahay inaad dhagaha ku shubataan wuxuu Allah subxaanahu wa ta'aala raali ka yahay quraankiisa wax walba jecel yahay inaad ku raaxaysataan heestan adduunyo wax ku matarayso maalinka yawm al-aakhir waxaad u baxsatida la rabaa Ilaahay hortaana soo hanuuniyo marka koowaad dariiqa saxdan Allah nagu dilo wallahi maanta saana haddaan ku dhimino saan dumar u nahay aakhira wax noo yeelo ma jirto qof walba wuxuu shaqaystay ba hor yeelo haddaad wax xun aad shaqaysatay wax xun baa ku hor yeelo haddaad wax san shaqaysatayna wax san baa ku hor yeelo runtii horta aniga hadda maanta ma lihi wax san baad shaqaysatay isma dhayna waayo saan dumaruna hees waan dhageysanaynaa waxaan rabnaa ku hadlaynaa laakiin adduunyadan waxaa is dhahaynaa waan dhiganaynaa waxaan ku haynaa meel naloo soo jiro horta Allah og niyadannada waxaa ku jirto waad noolaanaysaan qodax yar oo ku muddad u dhimanaysaa hortakooda marka koowaad teeda labaad naftaana la isma siina waa laysa suray Allah ka baqo oo timaha dadto oo xijaabka xirto oo is asturo baayo gabdhaha Soomaaliyeed la hadlaya raggana waxaan ka codsanayaa gabdhaha waa gabdhihiin waa walaalihiin maanta nin walaashi xumaan la jecel ma jirto haddii lagu dhaho walaashaas saasay ahayd meeshaas taagneed wallaahi oo bilaa atalaayan ku rood ka xumaanaysaa laakiin gabar kan inaad silcis waa rabtaa may Allah subxaanahu wa ta'aala ka gabdhaha walaalaha meel kaaga yeelaan gabdhaha kale kaaga yeeleeno ragga dhamaana la hadlayaa aan hal qof kama hadlaayo wiilkaas walaalkay oo liicaatay ahna gabadhaas Sumayo iyo wiilkaasaan siiba la sii hadlayaa hadda horta Sumayo abaa macaanto gabar waxaa tahay ani inaan ku caayo ma rabo
waayo dumaraata maanta ana dumara ahay haddaan adig ku caayo aniga waa caayanahay tusaale bas ay waanaa isku leenahay haddaad waanadaas qaadatid iyo haddii aad qaadaninbo kulley waxaan filayaa inaad qaadan doontid insha allah haddii is asturto oo xijaabka allah subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay ku dhaqato horta allah kaa dhigo ilaahay baan kuu soo baryayaa anina runtii sad ani aan jeclahay waxaan jeclahay inaan diinta ku dhinto inaan qur-aanka ilaahay akhrisanayo ku dhinto inaan xijaabka allah subxaanahu watacaala uu raali yahay ku dhinto kulligiina waan wada jeclahay inaad ku dhimataan wallaahi sida hore maaha adduunyada waxaad maqlaysaa maanta qof nool adiga waan ka warhaynin wuu dhinto qofkii hebel hadday adoo waxsan duubaynin allah subxaanahu watacaala aad dhimato maanta maxaad la hortegi waa waxbo tusaalo iwaano waa isku leenaha wax kaloo maanta isku tari karna ma laha waxba kaama qaban kara ani waxaa laga yaabaa hooyada waxa aad ku dhaqanaysid inay meel xanuujinayso sidoo kale aabbaha wiil wuu kula dhashay walaalkaa inaad bahdishid ma fiicno waayo maanta nin rag isagoo oo dhalinyaro asagoo ku dhex jiro yaa waxaa lagu leeyahay tiibaaba kula dhalatay maxaad ka hadlay walaalkaa tis islaa maxaad falaysaa walaalay macaanay maxaa u yeela asaga meesha dhagaxumo un iyo fikir horta ninka raggoo damiirta leh baasas u fikiri kii aan damiir lahayna kulley tabo maba kaa fikiraayo hadduu nin rag oo damiir leh kula dhashay wallaahi runtii in lagu bahdilo ma jeclaanayo iyo in meel lagugu caayo isagana nin qeyrkii macaan karo ragga maanta joogana ma rabaan walaalahood in la xumeeyo dhibaato in loo geysto ma rabaan abaayo dariiqa saxda ah kuwa ku dhintan allah naga dhigo dhammaanteen allah na soo hanuuniyo waxaan ka codsanayaa dumarka soomaaliyeed meel boo joogaana inay ragga ajanabiga ka ah oo wax lasoo duubayaan horta iska daayaan nafsadaada keligaa ku kalsoonow waxaad iska duubaysid keligaa iska duub yaa ku dhahay maanta qofkaas wax lamay soo duubin waa may ma jirto laakiin hadda isku dhedhejiso kuma rabaan maanta nin rag ah oo gabar wax la duubayso inuu fasahaadiyo uu wax qaldan u horkaca iyo hadduu rab hadhow meelaha ku caacayn yaa ragga ani waa aqaanaa waana soo wada barte rag waxay yihiin oo dhan waan ka warma ani walaalo wiilal waa ila dhasheen waan ka warqabaa marka abaaya macaantooy nin rabo ma jirto walaashii in lagu ciyaaro nin walbana wuxuu rabaa gabar soomaaliyeed inuu ku ciyaaro cadowgaaga ha isku bahdilin meel walba adduunyada cadow lagama waayo marka abaayo waa iga waano intaas unbaan ani ugu waaninaya tii qaadatan ilaahay kaa dhigo kuwii wada qaatana allah naga wada dhigo kuwii xijaabka ku dhintana allah naga wada oo diinta ayagoo qur-aankooda akhrisanaya wixii hooyadaa iyo aabbaha iyo waalidka iyo walaalaha ay jecel yihiin ilaahay kugu soo hanuuniyo insha allah shaydaankan adi hadda wuxuu rabaa inuu wax walba kuu horseedo kugu kaco tuso wuxuu ku leeyahay maya ma dhimanaysid maanta heestaa iska duub kan iska duub ninkan ajanabiga maanta wax lasoo duub la qosol kan may wax saxan maaha ilaahay subxaana watacaala hana soo hanuuniyo wallaahi aniga qof damiir laha ahay qof damiir lahna waad ogtahaa waxaa isoo kiciyey oo inaan wax doob igu soo kalifay waxyaalaha farada badan oo baraha bulshada ka jiro gabdhaha isa soo qaabinayo baay macaantoo ilaahay ha naga dhigo kuwii diinta ku dhinto dariiqa saxda ee qaado insha allah dhammaanteen waana iwaanaani hal shaqsi ma waaninayo dhammaanteen baa ka wada hadlaya hal qofna farta kuma fiiqaayo rag iyo dumarba waa isku waaninaya raggana waxay ku dhaqanayaan hadaayeeno ma u fiicna ayagana gabdhaha soomaaliyeed oo dhaqanka xun u horkacaysaan daayo waa iga waano intaasna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu